barnaamijka xusuus reeb ama xasuus reeb waa mid aan ugu talagalnay inaanu ku ururino dhacdooyinkii taariikheed ee ka dhacay arlada geeska Afrika maadaama 60kii ama 50kii ama 40kii sanadood ugu dambeeyay waxyaabo waaweyn ay ka dhaceen arlada Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika waxay noola muuqatay in barnaamijkan xusuus reeb ama xasuus reeb aanu u bixinay aanu ku soo ururino oo kolba aanu ugu yeedno cid aanu ku tuhno in goobjoog ay ka ahayd ama ay wax ka xasuusan tahay taariikhdaasi barnaamijkan waxaa marti noogu ah mid ka mid ah dadka aanu ku tuhumsanahay in ay taariikhda iyo waxyaabaha aanu ka soo sheekaynay muddooyinkaasi wax weyn goobjoog uga ahaayeen ama isaga la fahantiisuba uu qayb ahaan ka ahaa dadkii wax ka geystay waa macallin muuse xaaji maxamed xuseen waa muuse sheeko xariir muuse waxa uu ku dhashay magaalada dhagaxbuur ee Soomaalida Itoobiya deegaankeeda ka tirsan waxa uu wax ku bartay quraanka halkaas wuxuu galay iskuul qodo gaala ah oo mission la yiraahdo ay leeyihiin oo dhagaxbuur laga sameeyay muddo yar kadib kumuu raagine uu ka baxay boqorkii Itoobiya ka talin jiray Hayle Salaase loo oran jiray ayaa wuxuu had iyo jeer halays ama uu caado u lahaa in caruurta dadka madaxda ee magaca kula deegaanada Soomaalida iyo meelaha kaleba uu iskuul gaar ah u sameeyo oo uu isagu kharashkooda bixiyo sida awgeed ayaa waxa uu ka mid noqday Muuse dadkii la qaatay Addis Ababa ayaa la geeyay iskuulka gaarka ah oo ilaa fasalka 8aad uu ka dhigtay ayuu galay dabeedna 1963kii dhibaato weyn ayaa waxay ka dhacday deegaankii uu ku dhashay ee dhagaxbuur waa la gubay magaaladii iyo dagaaladii oo qalalaasa ka dhacay aabihii oo ka sii horeeyay isaga oo isagu gobonimadii markii Soomaaliya ay qaadatay dadkii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo oran jiray xagga iyo Hargeysa 61kii baa soo qaxay ayuu ka daba yimid 63kii wuxuu yimid magaalada Hargeysa xamar ayuu hadana u boqolay 1964kii wuxuu galay macadkii la oran jiray antik ee tababarka macallimiinta oo muddo ilaa 67kii uu ku jiray kadibna macallin ayuu muddo gaaban wuxuu ka ahaa Awdeegle oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan iyo iskuulkii Women's Club-ka la oran jiray ee Hargeysa ku yaalay Muuse Sheeko Xariir 1968kii ilaa 73kii waxa uu dib u galay jaamacaddii ugu horeysay ee la foole ee macallimiinta oo ahaa fasalkii ugu horeeyay ee macallin ahaan si rasmi ah 4 sanadood wax ugu barta 73kiina macallin ayuu wuxuu ka noqday qolihii iyagana markaa loo bilaabay xagga macallinimada ee BB-da la oran jiray ee iskuulada hoose loogu talagalay inuu macallin u noqdo muddo kadib 1975kii amuur weyn ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho dadkii Soomaalida galbeed ka yimi ayaa jabhad la yiraahdo WSLF oo ay lahaayeen shirweyne ay isugu yimaadeen Muqdisho iyo agagaaraheeda hadana qaldanin afku yahay baan malaynay dabeedna waxa uu ka mid noqday raggii shirka ka qayb qaatay guddiga fulinta ee jabhadda WSLF ayuu noqday 1976kiina waxa uu raacay ciidankii ugu weynaa ciidamadii ay lahayd jabhadda WSLF oo ka baxa dhulkii la oran jiray waqooyiga Soomaaliya agabar meesha la yiraahdo waxay galeen dhulka Soomaalida ee Itoobiya dabeedna dagaalka ayuu ka qayb qaatay muddo ayuu ku jiray 77kii markii dawladdii Soomaalidu ciidankeedii soo galay muddo kadib ee haddana huwan kala timi ee waxyaalo weyn dhaceen dib ayuu soo laabtay waxa taa ka dambeysay markii hore oo ka horeysay inuu jaamacaddii la foole la fahanteeda macallin ka noqday oo wax bari jiray dadka gaar ahaan uu dhigi jiray afafka Ingiriisiga iyo suugaanta markii jabhadii arrimahooda xumaadeen ciidamadii Soomaalida dhulkii laga soo saaray ee ay xumaatay 1984kii isagoo markaa dib ugu laabtay la foole oo buugtiisii dib u jafay yaa waxa loo soo diray
tacliin sare jaamacad ku taala wadankan ingiriiska magaalada la yidhaaho Manchester ayuu wuxuu ku bartay MA da tacliinta loo yaqaano ama heerka sare oo afkiisii hore ama af ingiriisidii iyo wixii uu yaqaanay iyo suugaantii iyo waliba sida loo maareeyo tacliinta sare uu ka bartay macallin ayuu wuxuu ka noqday kulliyado ama college ku yaala dalka ingiriiska in muddo ah intii ka dambeysayna ilaa odaynimada intuu soo gaarayay kullay wuxuu ka mid ahaa uun dadka Soomaalidii kalena ay ka daba timi ee ku nool arladan ingiriiska wax badan ayuu og yahay anigu intaan ogahay marka intaa yar waxa weeyaan Muuse marka hore barnaamijkan xusuus reeb ku soo dhawow intaa yar aan ka bowsaday intii aan ka aqaanay iyo xogaa yar oo aan adiga ka waxay maxaad ku dari lahayd xagga hore oo oran lahayd ducaalo maxay ahaydey wad mahadsan tahay adiga iyo staafka Horn Cable barnaamijkan inaga duubayaaba wad mahadsan tihiin waxaan kulli jeclahay inaan wixii Ilaahay heleeshiyo aan ka sheego wixii waay aragnimo ahaa ee aan kala kulmay intii aan soo noolaa aan Soomaali dhexdeeda ha noqoto Soomaaliya ama se ha noqoto Soomaali galbeed oo aan halgankoodii jabhadnimo muddo dheer aan dhex ordayay iyo wixii uun waay aragnimo intii aan xitaa wadankan joogay aan yeeshayba inaan wixii aan ka sheego ama taariikh ahaan ama se haddaba marxaladan aan joogno wax badan baa imikadan ba dhacaya oo aan goob joognahay maalin walba isagii oo ay isbedelo hor lehii dunida ka dhacayaan wixii fikir iyo talo ah ee aan ku soo biirinayo inaan ka ilaahdo waan jeclahay aan ka soo bilaabo yaraantaadii waata dhagax buur baad ku dhalatay dabcan dhulka miyiga aad ku dhalatay waxa ku dhalay Ilaahay ha naxariistee Xaaji Maxamed Xuseen Sheekh Xariib oo Soomaalida kulleyba aniga da'deeda iyo wixii ka weyn ay soo gaarayna ay aad u yaqaaneen inteeda kalena ay wax badan ka maqashay wuxuu ahaa nin dhaqanka ku adag oo af Soomaaliga ku adag oo dadka aad u yaqaan barnaamijyo ayuu wuxuu ku lahaa oo ka dhageysan jiray radio Hargeysa oo isaga iyo Umar Steeliin loo oran jiray oday kala ahaa isna ay had iyo jeer dhaqanka iyo af Soomaaliga ka sheekeyn jireen marka waxa laga yaabaa yaraantaadii adiguna inaad wax badan xasuusato aabaha horta aad ka xasuusato ama wuxuu kaaga sheekeeyaato ama dadka sidii la ahaan jiray ilbaxnimadu siday ku soo kortay magaalnimadu siday ku timid كل سؤال عشان يسوي ويدين لك ويدين ما يقول ما يقول ما مجالك ويقول رئيسه ده حبور بعض كلها ملانية لكن إيران هذا يسوقر كا يدجان كيسري لا ها يواه يجري ما حد كحسوسته يقوى وين والله وحن كحسوسته أنا وقتي هذا عندي أن أنا قاضي أما أنا عقلي يستي والكوسك والدقيقة هاي وسكر المجال أبوها ميجي أنا واحد بدن أنا بحين يران تيدي مو بحين ويدن بو أن وين نقضي ميجا وان تكتجي خاصة ويدا أن شبهه يلا السعودية بان آد والكباديها والحمرية أنا ولا شرير ميجا وحكي ردح علي لكن شخصيا أنا وح عن شرير ميجا نمدا ينولا شرير ميجا يعني أقول أنا توس عن أطابتي ولها وإسكيرتهاي هسه شيء دتك وحي عليه أن كم مغلي يوحي عن كبوسدي وأكمل تهاي حاجة بهاي هاي شيكتي الله يرحمه وحيالها أن شيكون كيسية كم مغلي شري ويا بدلك وارتن ها وحيالها كم مغشي وحيالها وش نسوق جاري وكشكي فنتي هدي الواجي ونولا أن garashada imka aan leeyahay iyo danaynta hadda aan danaynayo aan lahaa wax badan baan ka duubi lahaa ama aan ka qori lahaa waqti tagay in dib ma taqaanaa loo qoomeeyo oo la yiraahdo alla ilaahay waagaa saasa ay ekeyd oo wax bini aadamku dabeecadiisa lagu yaqaano ma aanan sidii ugu habboonay waagaa samaynin si ay ku dhacdayba laakiin waxyaalaha aan ka xusuusto waxyaalo fara badan baa yaa jira
xaajiga aabbahayihi waxyaalaha ilaahay uu ku banaystay waxaa ka mid ahaa xusuustiisu aad bay u fiicnaan jirtay waxaa kaloo aad ugu wanaagsanaa observationkiisa sida uu wax walba u eego si mataqaanaa dadku ay yaabaan sida uu ugu fiirsaday oo ay dadka qaarkood ku tilmaamaan malaha waa wax uun si kale loogu sheego oo welinimo iyo wax saasa loo malayn jiray laakiin inta badan taasu wax kastaba ha ahaatee observationkiisa aad iyo aad u sareeyay wax walba u fiirsanayo oo mataqaanaa waxyaalo badan oo ayna dadku ka arkaynin ama ayna ka maqlaynin uu isagu ka arkay kala soo dhexbixi jiray waxyaalaha aan ka hayo sheekooyinkiisa waxaa ka mid ah sheekooyin aan aad iyo aad beryihii uu ka sheekeynayey aan u xiisayn jiray oo ah isagii oo yar oo caruur ah wuxuu yidhi qur-aanka dhigta waktigaas waxaan ku qiyaasaynaa qarnigii 20aad bilowgiisii sanadihii ugu horeeyey 1905 maybe meelahaas wuxuu yidhi waxaa safrihii tegayey kasoo noqonayey xagga xeebta Berbera iyo dhulka iyo Zayla iyo baa waxay yidhaahdeen iyagiioo madaxa haysta oo yaaban waxay yidhaahdeen wille waxaanu soo aragnay un magaaladii ku soo aragnay markaasaa la yaabo la yidhi maxaad soo aragteen waxaa la soo aragteen muxuu yahay way ka sheekeeyeen waxaanu soo aragnay wax la yidhaahdo markab waxaad moodaa waa markabkii ugu horeeyey ee yimaada dhulka Soomaalida markab waagii hore wadanka ma iman jirin xeebaha iyo dekadaha Soomaalida waxaa iman jiray oo alaabta keeni jiray qaadina jirayna doonyo marka doonida way yaqaaneen doonidu sheeko la yaqaan bay ama way maqleen badda kulay dadkaas doonidu waxay ka samaysan tahay loox xitaa webiga Shabeelle iyo markay joogaan bay arki jireen dooni webiga loox qoryo la isku xidhay oo lagu tago dooniga la oran jiray way yaqaaneen marka wax la yiraahdo markab oo markaa si ku tilmaameen markab ay sheegeen markab waxay ku tilmaameen dadkii waxay yiraahdeen wuxuu ka samaysan yahay bir gabigiisa dhan waa bir waana wax aad u weyn oo waxay yiraahdeen reeraheen oo dhan dad iyo duuyo uu ina qaadi markaasuu badda ina la jabaaxay oo ina hordi markaas dadkii rumaysan waayeen wax aqliga geli kara waxaas suuragal ma leeyahay nin baa su'aal weydiiyay baa la yiri nimankii sheekada ka sheekeynayay wuxuu yiri war waxaan aad ku sheekeynaysaan waa bir baabad leedihiin waxaasoo hanti iyo xoolo iyo dad aan culaysaana la saaraya sidee buu badda laga sheekeynayay la yiri waa mool oo salkeeda lama gaari karo sidee buu u dhex socon karaa oo mataqaanaa u dabaalan nimankii arrintii way la yara yaabeen waxay noqotay arrin nimankan wax kale sheegaya bali la yaab leh ku yara noqotay way fikireen in nimankii ka mid ah baa soo boodayay wuxuu yidhi anaa idiin sheegi markabka waxaa dabaalsiinaya oo wata niman dabaal yaqaana yani garoo waa navigatorskan markabka wada unbuu ku qiyaasay inay iyagu farsamo ay yaqaanaan ku meel marinayo marka jawaab bay u noqotay hadalkii muddo kadib markii markabkii warkiisii aan noqday oo safrihii dambe sheegeen oo safrihii ka dambeeyay sheegeen soo aragnay markab la wada arkay wax sheeko la yaqaan ay noqotay magaciina caan baxay oo markab noqday wax la yaqaan markabna kelmadii ay kelmad la bartay noqotay tilmaam fiican ay ka bixiyeen oo waxay yiraahdeen markabku markuu soo istaago dekada iyo markuu baxayaba qaylo dheer buu bixiyo buu oran marka suuqiiqna dekada ka sii deyn markaasuu dhaqaaqiyo badda jibaaxi tilmaantaas isagoo laga hayo markabkii la bartay iyo haddana maalintii dambe yimaadeen safriyo waxay yidhahdeen walle waxaanu aragnay wixii hore wax ka daran waa maxaad aragteen markabkii badda juu jiray wuu soo baxay beriga yuu u soo baxay beriguu socdaa ma markabkii badda ka soo baxay oo dhulka maraya isagii waa yaryar oo intii ka yar oo muxuu yahay kana waxaa la yidhahdaa markab beri
waay oo marka berigu suu yahay marka berigina tilmaam bay ka bixiyeen waxay yiraahdeen sidii markabkii weynaa ee reeraha dhan iyo xoolahooda iyo dadkooda qaadayay ma ahee waa mid yar oo isagu qoys buu qaadaa in qoys buu qaadi karaa alaabtoodii iyo aqalkoodii iyo waxoogaa xayntooda adhigii iyo buu qaadi karaa wuxuu ku samaysan yahay waa afar waaxood gura toolmoon leh oo xagga hore u dhuuban oo dee 4 giraangarood oo wareegsanna ku taagan markaasaa waddo loo sii qoray kolkii hore inta afka loogu hagaajiyo yuu deedna markuu dhaqaaqayo sidii markabkii oo kale yuu xiin dhaguhu la qabsado yuu bilaabi wuubu odhan marka xiinkaa lagu bilaabina sankaa laga gelin qorigaa laga gelin oo markaasaa loogu xurbin markaasuu ku dhaqaaqay markaasaa waddadaasuu qaadayo faras gaari maayo arrintii baa la wada yaabay oo madaxa la wada qabsoonayay walla waa cajiib kaasina wuxuu noqday baabuur kaasina baabuur buu noqday laakiin baabuur uma aqoon berigaasi waxay u bixiyeen marka beri halkaa markay sheekadii marayso oo sheekadaa laga sheekeeyey baa wuxuu yidhi wiil ardadayeedii iyo qur-aanka dhiganaysay ka mid ah oo sheeka xariir aabbaha ninka markaa waxaa ka sheekeynay waay baa wuxuu yidhi unbaa soo booday oo yidhi waradinku waxaad la yaabantihiin markab hawaa'i iyo markab berri iyo waxaad la yaabantihiin markabkii badda annagu markab hawaa'i baanu aragnay hawada maraya waay kolkaasaa inta lagu soo wada jeedsada la qosqoslay baa layidhi war xaggeed ku aragtay bal looga sheekee kolkaasuu intuu soo indha caddeeyey buu ka sheekeeyey wuxuu bixiyey description tifaftiran oo uu tilmaamayo diyaaradda siday u soo degto iyo siday u kacdo iyo siday u samaysan tahay wuxuu yidhi 2 lugood bay leedahay oo ay markay soo degaysa la soo bixi sidaa waddadaa loo qoray baabuurka yaa ku soo hagaagi intay kolka hore meel ka soo muuqato oo ay soo dhawaato ay soo wareegto sida gorgorku aad ugu tilmaamay markuu soo degayo iyo gorgorku markuu kacayo ayuu dayuuradiina ku tilmaamay buu yidhi marka taas waxay muujinaysaa yani dabcan waxaa laga yaabaa waaga dayuurado badaniba adduunyada inaan jirin oo adigu imagination uu weera qiyaasay uu imaginationkiisa marka yani waxaynu uga jeednaa xaaji maxamed xuseen allah u naxariiso sheeka xariir aabbaha waxyaabaad ka soo gaadhay u yaabka lahaa adiguna kuwibaad fuushay markabkii iyo baabuurkiina adaaba kaxeeyey dayuuradiina dee dabcan waad usoo joogtay xaajiga laftiisu de markii dambe uu dhulka soo gaaray waxaasoo soo gaaray laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo ina dhegeysanaya inay yidhaahaan ummaddu dee waxay ahaayeen ma garanaysaa laakiin dee waraabaa wareysnaba wuxuu ka sheekeynayay baabuurkii ugu horreeyay hargeysa lagu arkay taas waxay tilmaamaysaa noocuu noqday iyo siduu ahaa waxay tilmaamaysaa adduunkan oo aan waxaan baabuurkan iyo technologygan imika meel walba buuxiyey nooc walba leh ayna jirin haba yaraatee waxa gaadiid loo isticmaalo waay adigaan kuu soo noqdo ay awr iyo faras yihiin iskuulkan mishinka ama gaaladu ay ka furtay dhagax buur ee lagu daray dabcan dee xaafadiina waan aqaanay iyo aabbaha iyo waxaan malanay inaan lagala tashan isagana inankii iskuul anaga dee qoladan reer hargeysa iyo xagganba waxaa la odhan jiray iskuuladii gaalada dirqibaaba lagu furay iskuullada oo qoladaasina kama sii daraaye siday ku dhacday markaa in adiga iskuul mishin wato oo dhagax buur ku yaal lagu qoro waa sida aad sheegtay weeyaane ma ogolayn aabbahay maba joogin markii la qorayay wuu maqnaa iskuulku wuxuu ahaa iskuul missionary ah oo dhagax buur iyo jigjiga iyo qalaafe ayaa laga furay waddankeena waxaa kaloo ku yilay Addis Ababa iyo magaalada Shamani la yiraahdo oo gobolkan Oromada ku taala waxaa la odhan jiray Sudan Interior Mission School baa la odhan jiray dad badan oo aad wax uga bartay baa jira quraanka markii aan dhameeyay baa wax kaloo iskuul waddanka ma ayna jirin caruur iskuulkii la geeyay baan arkay hooyaday baan marka ku dhigoon isku adkeeyo hooyo iskuulka halay qoro marka odayaashii magaalada ah waxaa loo baahnaa in damiin waxeeyo odaygiiba ii bariday odaygiiba ay kaxeeyey salaadiinta magaalada ah
odaygii baa mataqaanaa ay soo qoray markuu aabahay yimidna uu iska aamusay waxba mataqaanaa iskumuna dhibin muddo kadib baa magaaladii iyo khaakuul nagu kacay oo la yidhi caruurtan ninkan gaalkii uu gaalayn runtii wax gaalayn ahoo markaa meesha ka socotay maynay jirin barnaamijkoodu iskuol missionary ahoo kulley diinta kiristaanka iyo faafinteedu way ku jirtay oo afrika oo idilba dee waa barnaamij ay ka wadeen laakiin naga markaa wax ay nagu bilaabeen wax laydiin dhigay idinka ma jirto ma ayna jirin oo ka duwan wixii caadiga iskuulada caadiga loo dhigi jiray dad badan oo wax ka bartay baa jiray iskuulada missionka ahaa ee dhulkan Soomaalida laga bilaabay wax kale oo u qarsoonaa inuu dhici yahay waa laga yaabaa iskuulkii ala kulli xaal waa laga saaray aniga waxa la geeyay miyi iyo oday awowgay ahaayo sheekh weyn oo caan ahaa sheekh Axmed Nuur loo oran jiray awowgay hooyo bal ii geeyay kutub la ii bilaabay cilmiga diiniga baan sheekh noqotay sheekhni waan bilaabo kutub badan iyo axkaam baa la ii bilaabo bartay waayo mar quraanka waan soo dhigtay hase yeeshee tii ma ayna sii raagin magaaladii baan u soo cararo noloshii miyiga yaan u adkeysan karay waayay iyo xarnimo iyo noloshii adadkayda nooca ahayd magaaladii baan nimid laba jeer baa marba inta la qabtay dib la igu celiyay awowgay iyo kutubtii aan akhristo mar labaadkii aan soo noqday baan waxaan la kulmay isagii oo boqorkii Hayle Silaase ahaa scholarship oo kale wax ahoo 3 arday ay 5 arday magaalada dhagax buur la siiyay magaalo walba 5 baa laga qaadi jiray way 5tii baan ka mid noqday walkaas Addis Ababa yaa la geeyay way sanadkaas wuxuu ahaa 1960kii wax yar markaan ku maqnaa Addis Ababa oo waxbarashadii dhiganayay yaan maqlay magaaladii dhagax buur in la baabiyay oo gabigeedii madaafiic la dhacay oo la gubay aabahay iyo dad badan oo ay ka mid yihiin in ay ka qaxeen oo ay Hargeysa u carareen fasaxii markaan imid arligii haddana iska degan baan imid fasaxii dib baan ugu noqday Addis Ababa iyo iskuulkaygii sanadkii ku xigay iyo kii ku xigayba halkii baad dhiganaysa waxbarashadeedii baan Addis Ababa iska watay way hase yeeshee 1963kii yaan waxaan la kulmay isagii oo jabhadii waagaas ka bilaabatay dagaalka ka bilowday wadanka jeeshka loo oran jiray in Soomaali galbeed inay oo dagaal uu ka dhacay magaalada iyo agagaarkeeda kolkaa cabsi baa dhacday oo magaaladii baan ka qaxnay dhagax buur Hargeysa yaan akhritaankii tagay iskuulkaygii iyo Addis Ababa inaan dib ugu laabtana la ima ogolaanin waxaan joogay Hargeysa sanadkaas oo dhan iskuul fiican ma aanan helin laakiin waxbarashada Soomaaliyana markaa aad strong ma ahayn sida Ethiopia ka ahayd oo ka heer fiican baad joogtay adigoo ilaa standard 8 baan dhameeyay school secondary baan markaa galayay ma aanan helin waayo iskuulada secondary ee waqooyiga ka jiray waxay ahaayeen laba secondary oo Sheekh iyo Amuud mid walba 25 arday baa gali jiray waxbarasho aad iyo aad limited oo bay ahayd marka ma aanan ka helin boos xamar baan tagay xamarna way ka sii dareyd waxbarashadeedu aad bay iyana u sii hooseysay laba iskuul bay iyaduna lahayd oo iskuul carabi oo af carabi lagu dhigto iyo mid af Talyaani lagu dhigto labadii midna ima suroobin laakiin sanadka aan soo qaxay sanadkii ku xigay 64 yaa iskuul waxbarasho macalinimo ah oo NTEC la yiraahdo National Teacher Education Center afgooye ku yaala meeshan imika la foole noqotay waagan dambe jaamacadda weyn laga sameeyay iyo Mareykanku ka furay kaasaan imtixaan u galay oo kii baan helay kii baan waxbarashadeedii ka sii waday oo aan macalinimo 3 sano ah ku dhamaystay 2 sano markaan soo shaqeeyay kadibna haddana iskuulkii oo kor loo qaaday jaamacad laga dhigay jaamacadda la foole la yiraahdo yaan galay iyadana 4 sano dambaan dhiganayay 73 baan ka baxay halkaasaan maxay ahaydey macallinimadii heer secondaryada iyo maxay ahaydey tababarka macallimiinta iskuul ah oo BB program la oran jiray baan ka bilaabay waxay kadibna isla jaamacadda naftigeedii baa la ii qaatay inaan macallin ka noqdo oo aan macallin ka ahaa
maxaad dhigi jirtay markaa waxaan dhigi jiray English language and literature luqada iyo suugaanta ingiriisiga waxaa kaloo dhigi jiray iyadana koorsooyin kale oo waxbarashada education wax la yiraahdo oo habka wax loo dhigo ee macalinimada loo noqdo yani iyadana koorsooyin ka bixin jiray muddo markaan taas waday baan diidna program kale oo wixii hooba ka duwan oo jabhadnimo ah iyo siyaasad baan galay jabhadii WSLF loo oran jiray xoreynta Soomaaliya galbeed baan lugta la galay waayo waxa aad iyo aad iigu weynayd oo igu taagnayd haddii badankeeda leeyahay qadiyadda waddankaas Soomaali galbeed oo dhib weyn uu ka taagnaa oo gebigeedu waddanka dhani u ahaa mataqaanaa meel ciidan military ah oo dadka dhiba oo cadaadiyo oo caburiya mooyee wax kale horumar ah uusan ka jirin dadkuna aad iyo aad ay ugu rafaadsanaayeen oo wax la dilo iyo wax la xidho iyo wax la rafaadiyo ummaddu ay ahayd had iyo jeerna in dadku ay ka soo qaxaan oo ama Soomaaliya qaxooti ka noqdaan ama dunida u kala cararaan ay ahaan jirtay baa dhibkiisa iyo warkiisu mar walba lagu taagnaan jiray jabhadaas oo abaabulkeedii halkaa haddana xamar nooga bilaabmay baan dhex galay oo ka mid noqday muddo kadibna kolkii hore anigu guddiga fulinta ee jabhadda yaan ka mid noqday laakiin kolkii dambe anaa si voluntary ah ciidankii jabhadda ee gudaha galayay ee dagaalamayay yaan raacay halkaa ii joogintaana halkaa dhaafin halgankaa gobonimo doonka ah ee ma garanaysaa Soomaalida galbeed muddo dheer buu soo socday oo dabcan wuxuu la mid ahaa kii gobonimo doonka ee Soomaalida kaleba dawladii Soomaalida la qaybsaday ee gubeysigu wada haystay markaan odayaasha had iyo jeer wareysanayo waxay ka sheekeeyaan inay jireen marxalado mesela rag aabaha uu ka mid ahaa ay ka qayb galeen shirar ay isugu timi ma garanaysaa Soomaalidu mesela Ingiriisku uu abaabulay mar inuu Soomaalidu dhan isu keeno oo ay meel isugu wada timaado oo dabeedna calankii 60kii dhashayna uu u dhashay in dalalka maqashanta Soomaaliyeed ama shantii waaxood ee Soomaalida loo kala qaybsaday la isugu keeno dabcan idinku waxaad ka mid ahaydeen dhulka Soomaalida galbeed dhowr jeer waa magaranaysaa ay sheegtay in 63kii iyo 62kii markii xaggan xorowday xaggana dagaal iyo gobonimo doon ka bilowday dhaqdhaqaaqyadaasi ma waxa ahayn kuwa ay dhalisay dawladdii Soomaaliyeed dhalatay oo ay wax sii xoojisay mise hiyika dadkii gudaha ku dhashay mar haday ku wada xoroobeen iyaguna inay xoroobaan wax ku saabsan bayd bal hadda waxyaalaha aad ka xasuusato ilahaad ka maqashay iyo ilaa intaad yareyd intii aabahaad ka soo gaadhay hawlihii gobonimo doonka ahaa ee ka dhacayay dhulka Soomaalida galbeed maxaad ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa horta arrintan gobonimo doonka Soomaalidu mid sidaan aan sheegay ciidanka caburinta iyo dilka iyo rafaadinta ummadda u jooga ka dhashay buu ahaa oo ridul ficil ay ciidankaas iyo dhibkiisa uu keenay buu ahaa ilaa iyo waagii uu ciidanka Itoobiya ee axmaaradu uu waddanka qabsaday oo waqtigii ugu horeeyay lagu tilmaamo 1887 markii ciidan aad u fara badan oo ilaa 80,000 oo askari oo hubeysan oo axmaaro dadka la yiraahdo ay magaalada Harar intay qabsadeen ay sidan u soo saqaafeen iyagii oo hub iyo rasaas xad dhaaf wata dameere iyo baqla fara badan u raran yihiin dadkan Soomaaliyeed oo wax qori iyo xabad la yiraahdana aqoonba ay markaa line fara badan u geysteen laga bilaabo iska celin iyo iska caabin lala dagaalamayo oo yaa soo socday muddo fara badan dhacdooyin fara badan baa jiray Minilik dawladdiisii markay dhacday wixii ka dambeeyay dawladdii Hayle Silaase ayadana muddo fara badan waddanka haysatay sidii iyo si ka daran bay dadka u sii caburisay oo ay u leysay oo misalan magaalooyin dadka iminka ina dhageysanaya ama noole ay u haystaan in Itoobiya ay lahayd oo Soomaaliya deegaanka sidii ay jirto cid kale ku weelin Soomaha waddanku ma taqaana waddan Soomaaliyeed buu ahaa dhul Soomaaliyeed oo ay Soomaali leedahay weeyaan sideen iminka dhul Soomaaliyeed u yahay
magacan Etoobiyana dee waxay nagu cusub u ahaa waagaa oo ay nimankaas Etoobiya la baxay waagii horena Abyssinia iyo Axmaara dhulkan la yiraahdo ka soo bilaabay oo nimanka boqorada ah ee xooga badnaa diinta Kristaanku ay diintooda xoog مثلا دري دبو kale iyo 48 baad la qabsaday kulligood dhulkaas oo dhan dhul Soomaaliyeed buu ahaa soo u dhan yahay jigjigan dhowr 50 baa ahayd markii Ruseferiye la wareejiyay markaas 450 nacam laakiin waaga hore ay qabsadeen marka Ingiriisku u wareejinaya waa mar dambe qabsashada hore ma taqaana iska caabin fara badan ay bilaabatay waxaa jirtay ma taqaana dadku khilmado fara badan waxaa jira dadku ay si qalada hadalka loo yiraahdo hadallo aan runtii habboonayn oo Soomaalidu ay iska raacday laakiin aan u aaminsanahay in isticmaalka Axmaarada uu sameeyay oo ah dadkan Soomaaliyeed ee wadankan deganaa ee la leeyahay dhibaatooyinka lagu sameeyay dhibaatooyinka inay wax ay dareemayeen ma jirin ama dhibaatooyinku ay jirin iyaguna dad gobonimo doonimo hindisi kara oo fikiri kara oo is abaabuli kara aynan ahaynba ee dawladda Soomaaliya markay dhalatay iyadu dabada ka waday oo Soomaaliya oo inay dhul balaarsi samayso oo dhulkan qabsato wax ka dhashay inay tahay hadalladaas waa hadal aad iyo aad gaf u ah dadka qaarkood oo Soomaalida aan xitaa mararka qaarkood hadalka laga maqlaa iyagoo waxaan ka ku hadlaya waa hadal khaldan oo gaf ah waa hadal dadka wadankan lahaa ee Soomaaliyeed lagu ceebeynayo oo lagu xaqirayo oo fikir uu isticmaal samaystay weeyaan waa mid xaqiiqada ka fog tusaale haddaan ku siiyo xataa si kama dambaysa u cadeynaya oo inayna sida ahayn intaanay dawladda Soomaaliyeed dhalanin oo dawladda Soomaaliyeed ba abuurmin niman geesiyaal oo caan ah oo taariikhda gobonimo doonka Soomaaliyeed caan ku ah baa jira Maqtal Daahir baa kamid ah Maqtal Daahir wuxuu la dagaalamay Talyaanigii aad ula dagaalamay rag fara badan ka laayay wuxuu la dagaalamay Ingiriiskii wuxuu la dagaalamay Etoobiyadii hore Ingiriisku markii uu wadanka dib ugu soo noqday uu qabsaday 1900 iyo 1940 oo Talyaanigii dhulka haystay uu jabiyay Ingiriisku intuu Maqtal Daahir qabtay yuu xamar ku xidhnaa xabsi leeyahay magaalo leeyahay dhanaane محمد أكتيد أبو كحلنا مركز أنت الديارات لساري بحيل سلاسة لوجي مركز حيل سلاسة أدسوه كحلي مقصد ظاهر توجش على لوح حكومي حيل سلاسة وحو كل في مقتل تلياني هراء والله دجالمي يو أركينين قبل نمدون ولو كيس العل إنه هي وأنا لقيت الماء بكرينين ضدك إسكدلية وأنا أرجع حسنمي كلمة نوع عاسة وسوداي متكذب هذا مركن دنبه لبيه لحدنكii meelaha ay dib u bilaabaysay jabhadan dambe dadkii ninkii aasaasay ee abaabulkeeda ragii ugu weynaa lahaa uu ka mid ahaa marka meesha laga soo gelin karo dawlad Soomaaliyeed baa ku dhalisay ama dadka qaarkoodna xitaa aqli xumo ay yiraahdaan Maxamed Siyaad Barraa waxaan oo dhan ka dambeeyay oo Maxamed Siyaad Barraa isaga jirayba dawladda hore ee Soomaaliyeed miyada jirtayba marka gobonimo doonkan uu jiray ee dagaalkaas uu socday ee dadkaas ay xuquuqdooda u dagaalamayeen waa xaqiraad xun oo lagu sameeyo Soomaalida waxayna ka dhalatay baan idin leeyahay oo anu aan qabaa oo aan marxaati madoon ah caburintan dadka Soomaaliyeed ay ciidankan Itoobiya ku sameeyay ee wadanka u joogo oo wax kale aan qabanin wax service iyo wax barid iyo horumarin ah aan dadka u sameeyay xaram military noqotay ciidan oo dadka laaya taasay ka dhalatay oo radil ficilkeedii ay ahayd marka dhaqdhaqaaqa gobonimo doonku muddo badan soo jiray ilaa waxaan idin yiri Talyaanigii bay la dagaalameen oo isaguna ileen ciidan wadanka yimid oo aan mataqaanaa wax dan iyo wanaag u hayaan ummadda u soo jirin buu ahaayay yaa la dagaalamay Ingiriiskii ka qabsaday baa la dagaalamay Itoobiya la dagaalamay waayadaas Itoobiyaanimadana dadku isumay arkeen in Itoobiya yihiin waxaan qabaa waqtigaas jabhadaha iyo halganka iyo dagaalka waaga socday inuu ahaa mid xaq ah waa ka aan ka qayb galay isku mana qoomeynaya ka qaybgalkii aan ka qayb galay 1975kii WSLF ayaa dib soo boorka uga soo tuntay nacam boorkan ka soo tunnay dib baan u abaabulnay dowladii Maxamed Siyaad Barre iyo militariga hay ciidan adag bay dhisatay iyada qudheedu
نعم waxaana la oran karaa dawlad walba meesha ka timaado ama tii kuwii ka horeeyay ama kada waxa way kulli hami baa jiray in qolada Ethiopia gacanta la isula tagi doono gooray noqotaba نعم oo dagaal horeba kii 64kii هاي dhacay نعم Ethiopia duruufa ka dhacay نعم boqorkii adkaa ee Mareykanka iyo reer galbeedka gacanta ku hayeen ilaahay baa xoog leeyahay naga xoog weyna waati ardaydu ku kacday ee baalasha laga rifay ee isaga qudhiisii la riday ee markii dambana god yar loo qoday نعم oo magaranaysa qolihii militarigu ay qabsadeen iyaguna way iskumaadeen هاي itaal darada markaa ku dhacday Ethiopia ama dawladii weyneed haysatay dabcan Soomaalida galbeed dulkeeda miyay ahayn oo la oran karo way u muuqataa in fursadda laga faa'iideysto sababta idinkana la idinku abaabulay xamar oona goobjoog ah markii abaabulka magaranaysa la sameeyay ciidamadii Soomaalida oo saakiishii Soomaalida darajadii lahaa ay wataan dabcan adiga rag aad baqad sarkaal Soomaaliyeed baad ahayd oo markaa macallin baad ahayd haddana intaan dharka ka saaribaan magaranaysa ku diray xagga ma la oran karaa markaa fursad baa laga faa'iideystay itaal daro iyadana haysato xukuumadda Soomaalida lafteeda ee Maxamed Siyaad Barre dabaday ka riixday arrinka horta يعني itaal darada waqtiga ka taagnayd Ethiopia waa la oran karaa markan xoojintan la xoojiyay iyo dawladda Soomaaliya xoojintan ay soo gashay dagaalka soo abaabushay waxna ka abaabushay soona gashay waa la oran karaa laakiin tan jabhadda markay timaado jabhaddu anigu waxaan qabaa muddo dheer oo ka horeysay bay socotay waxay socotay waaga hore dagaalka 64kii iyo bilaabmay marnaba ma una baabi'in wuu sheeqay hoos buu u dhacay hase yeeshee gudaha uu ka socday waxaan mesela tusaale ku siin karaa liman gudaha ku jiray markaa anagu aanu gudaha galayno dagaalameynay naga horeeyay oo joogay muddo dheerba dawladda Soomaaliyeed iyo wax tirsaday toona ayna jirin iyo wax gacan ku siiyay toona Umar Nuur Maxamed Khaliif nin la yiraahdo oo caan ah oo imkaantadii aan ku ogaa wadanka Jigjiga eelada soo jooga yaa kamida ciidan buu ku haystay ka dagaalamayay dagaal aad u xoog badan iyo ahaanina waxa jiray niman dibadda isku soo tababaray oo tababar ku soo qaatay xafiisyo jabhadu ay ku lahayd Suuriya Ciraaq meesha la yiraahdo Masar baa jiray ciidamo hub ka soo qaatay iyo tababar wanaagsan ee Suuriya iyo Ciraaq ku soo qaateen oo ay cadan yimaadeen oo ay ka soo galeen meesha la yiraahdo Lughaya oo lagu qabtay Lughaya agteeda dawladda Soomaalidu ay qabatay oo xidhxidhay محمد علي ما كان منها صوها رجع محمد علي محمد علي فارح كي واجي دنبه جبهة SNM تا قيب قلي وها ونكا رجع عن إسرائيل واجا عن راعي جودها قليو 90 كون يسقال بقول تدباتني اللحدي عيدا كأحمد قريت كحيسان عيدا انتهي اللي جابوها وصدوه بس ناس ده وأباب الله عيدا يا مضحوها يوتي عيدا وسياسي كذا هيدور ويه ciidan wuxuu aad iyo aad u tababaran 13 bilood buu ku jiray tababar meesha la yiraahdo Agabar ee Hargeysa agteeda iyo waqooyiga Hargeysa ka xigta yaa lagu tababarayay ciidan aad iyo aad u tababaran buu ahaa tababar noocyo kala duwan oo ay dad fara badan oo jabhadda maxay ahaydey tababarayaasheedii iyo madaxdeedii ay tababareen buu kamid ahaa waxa tababarka siiyay oo kamid ahaa rag lagu soo tababaray Kuuriyada waqooyi oo fara badan oo 71 iyo 72 iyo tababar loogu diray oo ka soo baxay tababar Kuuriya iyo Ruushka oo dagaalada Dhuumaareysiga ay yaqaanay oo yaqaan dagaalada Gorilla Warka waxa tababaray Maxamed Ali Faarax oo kale oo Suuriya ku soo tababartay bari hore Maxamed Ali ha voluntary buu maxaa Ali Faarax ma cid baad dirsatay ma cid baad dagaalkan gelisay nin isagoo ikhtiyaarkii gobonimo doonimada u jecel buu ahaa revolutionary rag fara badan oo noocaas ah baa ku jiray jabhadda oo abaabulkeeda waday waxaan qabaa dawladda Soomaalidu marar fara badan
iyadaa hakinaysay oo caburinaysay oo dagaal iyadoo aynan dabada ka wadin inuu xagga Soomaaliya gudaheeda ka hirgalo bay diidanayd waxaa jiray marar fara badan oo dhaqdhaqaaqyo arday iyo dhalinyaro fara badan oo xamar iyo hargeysa iyo dhaqdhaqaaq intay sameeyeen dadka dhalinyaradii joogtay wadanka ee Soomaali galbeed la qabqabtay oo la xidhay oo sanado badan xabsiga ku jireen waxaa jiray haddii badankeedii leeyahay jabhadu markan ay soo gashay gudaha marar fara badan oo sida ay dawladdu doonayso inay u kontroosho oo ay يعني من والب الدولة الصومالية الدولة حقوق بدني إني policies جو أي لا هاي أي فشتو بيدوني سا مركز كبحدين فربنا بكل هاي مركز أجبر كبحدين كل يسقال بقول يو لحية ضواتك واحد يقول أنت هل كان مرتين يصاب مرتين يعيد أن كذا عيدين يو هوشاس هذا كل توبر مقاطع وحمل ما أنا توبر كي توبر سك ليميت لابو هاير لو بالوضع ما حقا ciidan lagu tababarayay meel qorilow leeyahay oo xagga xamar agteeda oo xeebta yaan xogaa la qaatay laakiin tababar weyn oo military ama aan dagaal gelin karo ciidamada kaligay ama aan iskay anigu u dagaal macallin baa dabcan anigu tababarkayga hore aqoontaydu macallinimo ahaa fikir guud oo aad u wanaagsan waan ka haystay dagaalkan gorillaha khaasatan iyo istiraatiijiga guud ee mataqaanaa waxaanu maray haddii badankeeda leeyahay agabar baa nalaga soo saaray habeen isagoo waxa dhan uu qarsoodi yahay oo la qarinayo wado khaas oo loo sameeyo si gooni ah oo qarsoon loo sameeyey oo aan dadkuba inuusan arkin loogu talagalay ee la soo mariyey meel masaajidka la yidhaahdo oo xuduudka ku taallaanu ka soo galay baabuur shacabku leeyihiin oo fara badan oo baabuurta laga soo qabtay shacabka dhowr iyo 40 baabuur baanu wadanay aniga iyo ninkii commanderka taliyaha ciidanka ka ahaa Yuusuf Dheere waad garan Yuusuf Maxamed Sugaal waa dhaweyd ku dhintay jigjiga oo taliyaha ciidanka ahaa yaa gaariga ugu horeeyay la saaray waxaana lagaga daadiyay wadada cad ee Hargeysa jigjiga iyo dhagax buur u dhaxaysa meel la yiraahdo Araarso oo imika magaalo weyn noqotay oo degmo ah baa lagaga daadiyay baabuur waliba intuu dhigo ciidankii iyo wixii hub u watay budib cararay ku noqonayay xadkii talaabayay halkii waagi noogu bariyay halkaas aanu ka galay oo aan hoos u dhaadhacnay jeerar baan hoos ugu dhaadhacnay faafan baan maray jigjigaanu dhabarka ka maray intaana laakiin meel fog bagaadhin markaanu marayno meel dhurwaale leeyahay togan sharar ku taala oo halkii aanu ka degnay aan aad uga fogeyn yaladin ogaaday ba dawladdu ay nimankii militariga ahaa ciidan jigjiga laga soo bixiyeen xoog badan oo taangiya wata togan sharareed bay soo mariyeen meel qaaxa la yiraahdo oo aan ka fogeyn dhurwaalada aan joognay bay ciidankayga isku heleen halkaas aan maxay ahaydey shacabkii ugu horeysay aan ugu geysanay oo tababarkii ciidanku uu haystay tijaabadii ugu horeysay wala kaga baxday marka hubkaas hub waaweyn hub wuxuu ahaa hubka yaryar waxa hubkay ugu waaweyn oo ahaa qorigan baazuukaha la yiraahdo taangiga loogu talagalay miinadan dhulka la dhigo oo lagu ambush gareeyo ciidamada loo dhigo waxaad qaadan kartaa runba waxaan waan qaadan karnaa ama awr aan marka qoladii ugu horeysay Etoobiyaanka ahaa ciidanka ahaa soo doontay baad ka adkaatay waan ka adkaanay way diyaarado badan baa yimid oo la soo weeraray diyaaradahana wax la iskaga difaaco waan haysanay oo gamuun bahal garab la saarto oo lagu riday yaan wadanay inkastoo aanan ku guuleysan inaanu soo ridno laakiin si fiican buu u daba galay oo cayrinayo kolkii ugu liidato way cararayeen way marka meesha lagaga soo rido kumay soo dhiireen bar dambe horaan u soconay marka ilaa iyo wuxuu ciidankii qabsaday dhulka marka ciidankan Ethiopia uu ugu xoog badnaa oo jigjiga iyo harar dhulka u dhaxeeya iyo ciidankaasu aagiisa loogu talagalay ahaa inta u dhaxaysa magaalo inta leeg buu hatiradii intahay ciidanku markaa u horeysay uu soo baxayay wuxuu ahaa 1000 iyo
400 oo nafti hore iyo odayaal xogaa ah oo reeraha iyo ka tirsan oo dadka abaabulka iyo waxyaalaha mataqaanaa sidee dadku idin soo dhaweeyeen oo la idin raacay deegaanadii aad marteen wallaahi dadku aad iyo aad bay u raacsanaayeen aad iyo aad baa raalli loogu ahaa 100% wax naga soo horjeeda haba yaraatee maana arag wax la yiraahdo ama cadowgu la jiraa ama sinaba mataqaanaa noo dhaliilaya ama nooga soo horjeeda maana arag 100% baa dadku meel walba una garab istaagay ciidanka Yuusuf Dheera taliyo ahaa Banduulusna Maxamed Cali buu Banduulu wuxuu ahaa nin oran jiray Axmed Cali Nuur Maxamed Cali Faarax wuxuu ahaa ninka dagaalgaliyaha ah oo ciidanka meel kastuu ka dhacayo dagaalgelinta dhabta ah ninka dagaalgelinaya buu ahaa anigu iska hawlo siyaasadeed baan uga jiray waxa loo socotay waagii dambe ciidamadii dawladda Soomaalida anaguna udbahaygii iyo dhigahaygii wadana yaa idin nimiyo aanu jabhad idinka magaciina sheeganay hada sheekadaas sida ay u dhacday iyo waxaad siyaasi ahaan ka xasuusato dhacda ahaan uga soo joogtay ka sheekay waxa weeye dagaalkii anagu joogna magaalada Harar hoosteeda meel ah oo Hamar Rays magaalo la yiraahdo tog ku yaala anagu joogna habeenkii leydka Harar uu noo muuqdo saldhigayaga yani anagu aan joognay laakiin ciidanku halka ilaa iyo meesha la yiraahdo jigjiga inta u dhaxaysa iyo jigjiga iyo dhagax buur dhulkaas oo dhan uu ciidanku haysto Harartan aan kor u dhaafno ilaa iyo dir dhab gaarkeeda oo ciidankayagu joogo yaanu ka war helay in dawladdii Soomaalidu oo guureedeedii wada tahay dagaalka soo gashay in qabri daare iyo goday iyo ay qabsadeen raadiyaasha Ethiopia markii hore ka maqlay waanu yaabnay anaga waxaan la socodsiyo wax ka ogeyn ma ayna ahayn waxaan oran karaa waxyaalo fara badan oo markii dambe uu aad loo dhaleelay yaa ka dhacay halkaas oo farsamo xumo ah sidii wax loo doonayay ama qorshaha anagu aan rabnay ama ku haboonaa uma aynan dhicin wax waliba dawladda Soomaalidu kulay dana gaara iyo mujeedooyin way kala hayd anaguna ujeedooyin iyo dana aan lahayn baa jiray markii hore dhinacyo fara badan oo aan iska waafaqsanayna way jireen dagaalkan ilaa in la galo wada dabcan cadow quladooda lahaydeen anagu 100% inaanu ka faa'iideysano ciidanka Soomaaliyeed iyo hubkiisa iyo meel kale oo hub ka heli karaynay ma ayna jirin aad baan u doonaynay mararka qaar kood ayaan dawladda Soomaalidu dagaalka soo gasho waabanu doonaynay laakiin guud ahaan marka la isu geeyo marka la analyze gareeyo siyaasiyan fikirkaygu ma ahayn sida inay toos hoos waqtiga isaga inay soo galaan ma aanan doonayno qorshahayaga ma ayna ahayn marka qorshayaal fara badan oo qaloocday way jiraan dadku fikirkan wax walba la saaro dawladdii Soomaalida iyo ciidanka militariga ah ee soo galayna anigu 100% ma raacsani sababtoo aan u raacsanayn waxa weeye meeshan dagaal weyn baa la galay dagaal gobonimo doon baa la galay ujeedada ciidankan Soomaalida uu soo galay ama mid shakhsi saraakiishan iyo ciidankan dagaalamay ha noqoto ama ujeedada guud ha ahaatee muraado kale inay dawladdu ka leedahay iyo siyaasado kale oo aan toos loo cadeynayno waa laga yaabaa laakiin inta uu noo muuqataa waxay ahayd hiilo annagana loo hiilinayo nala gacan siiyay gobonimo doon haddaan asaasaan u arkaynay kumayaal qof oo Soomaali ah oo meel walba Soomaaliya ku dhashay oo ciidanka Soomaalida ka tirsan iyo kumayaal nafti hore oo jabhadda ciidankeedii ah baa ku dhintay in alla intii ku dhimatay oo dhan saraakiishii iyo askartii ciidanka Soomaalida iyo naftood horeyaashii gobonimo doonka intaba waxaan leeyahay anigu ilaahay halgankoodii iyo dhimashadoodii siday iyagu u rabeen oo naftood horenimo ahayd ha u xisaabiyo jannadii firdowsana ilaahay ha ka waraabiyo waanan ku ammaanayaa waanan ku hambaliyeynayaa geesinimada dadkaas waagaa u dagaalameen siyaasadan kale ee dawladda Soomaalidu waxyaalo kale oo mataqaanaa ama gadaal ka soo baxay ama markaaba dadka qaar kood la yara dhibsanayay way jiraan oo isweydiin ma laha
waa un aragtida kala duwan ee dadku ay kala siyaasad kala waxaan duwan masalan yihiin. xasuustaa 1977 bartamihiisii bay rasmi ahaan ciidamadan magaranaysa Soomaalidu Soomaaliya u galeen dalka oo masalan goday iyo sidaad sheegayso magaalooyinkii waaweynaa la qarin karin nacam wajahadiina yarana aanay qabsan karin ahay ayay qabsadeen markii dambe ilaa dayuuradii baa galay nacam laakiin been baanu sheegnay oo beentii qudhahaydii Soomaaliya ku heshiisay weligay intaan garanayo aniga qudheedu waxba idinkamanaan hooseynin ayay ahayd oo waxaa la yidhi Soomaali galbeed weyn oo ajnabi waan kaxiyey baan garanayaa oo rag aad garanayso oo Allah yarxame jarankii korneelkii Cali Xuseen oo kaliya baanu wajahadii buu ka mid yahay nacam taangi calaamadii Soomaalida ku qoran tahay meel yaalo jibir kan ka waran gabadh Mareykan iyo aan la socon markaas u midiyay war Soomaaliya nagu caawiso dhahaban maxaan ku sheegaa bilo Soomaalida nagu caawiso ilmo oran waxa buu yiri wax la qarin karo ma satellite saara waxay nasiib wanaag wax anaga waxa la leeyahay burburkan marka dambe Soomaalida ku dhacay lafteeda taasoo sababahay waxaad ka oranaysaa way u ahayd isweydiin ma laha isweydiin ma aha sababta markaan leeyahay anigu arrimaha cidnaba hadda kuma eedeynayo waxa weeyaan dawladda Soomaalidu gelidda ay dagaalka soo gashay aakhiritaanka burburkooda iyo waxaan ka dhacay Soomaaliya oo dhan ilaa maanta socda dawladnimadoodii ay ku waayeen dagaalka gelidiisii buu ahaa marka anagu maadaama aanu gobonimo doonkii meesha ka dagaalamayay wadankan iyo ummadda Soomaaliyeedna ku muusanaabay ee dagaal soo dagaalgeliyay adahaydeen aanu ahayn marnaba anagu horta cidnaba aanu eedeyno ama aanu mataqaanaa ambaarayn iyo waxyaal ku samayno ma doonayno igumana habboona anigu kullaba inaan dad cidnaba wax ka sheego hase yeeshee waa xaqiiqa in maxay ahayd farsamo badan ay xumaatay in waagii dambe wax la qarin karaa ma ahayn arrintan markii dambe dawladda Soomaalidu way qiratay nin walibana wuu qirtay aakhiritaankiina waa kay ka baxeen dib uga laabteen wakiil gaashaanbuurtii warsatimi laakiin markan ay ka baxayeen waa mar ay talafara ka baxday xoogag aan la iska celin kareynin dawladdii midowga Soviyeeti oo oodaheedii wadata ba dagaalka soo gashay oo wadata maxalla wixii ay soo dagaalgelin kareysay haddii badankeedii leeyahay Warsaw Pact la oran jiray yaa soo galay xoog aan la qarin karin oo la iska celin kareynin aakhiritaankiina waxa anaga haddaanu jabhad ahayn iyo dawladdii Soomaalidaba agta mariyay dagaalka ay dhanka Ethiopia ka soo safteen quwadihii markii hore anaga gacanna siinayana tababaray Kuuriyadii waqooyi Ruushkii kulligood xagga kale ka soo jeesadeen arrintiina arrin ideology iyo afkaar si kala yaa loo bedelay annagii dhanaa iyo dawladdii Soomaalida iyo kulligiiyo wax hanti wadaag diid wana laga soo qaaday hanti wadaagnimadii iyo sheekadii nooca ahayd iyo shuuciyadiina waxaa qabsaday oo horseed u noqday Ethiopia dawladdii Ethiopia iyo Mengistu Haile Mariam siyaasadda isbedelaysa ee dhinacyo badan kolba weji hor la imanaysa bay ahayd waxyaalaha jabka kama dambaysa keenay taasay ahayd maxaa ka soo celiyay adigoo dagaalka galay oo ciidankiisi kaxeeyay oo mutacallim ahaa oo inkastoo dee dhulka u dhalatay ay xataa kugu kaliftay inaad sii barataa dabal inaad intaad iska celin karto markaad aragtay waxyaalaha ilimka aad ka soo istay qaarkood ee aad ku muuqatay jabhaddii iyo sidaad idinku doonayseen inay wax u shaqaynayn dib baad soo noqotay rag ka mida jabhaddaasi laftoodii waa la xidhxidhay oo taliyihii uu ka mid ahaa Allah yarxamu Yuusuf Dheere maxkamad baa la tagay 28 sano lagu xukumay dheeraad oo qayladii markii dambe aad idinka iyo qoladii kala qayliseen ayaa dee lagu tahay rag baa dil dee lagu xukumay la laylaha waa xaqiiqa oo dawladdii maxamed Siyaad Barre iyadii baa carruurteedii dib u xuntay baa yaa la yidhaa mararka qaarkood maxaad aragtay ku soo celiyay dib ku soo noqotay horta Yuusuf Dheere kaliya ma ahayd dad aad u fara badan baa yaa la xidhay aragti uun kala duwan oo dawladda Soomaalidu dawlad waxay ahayd military ah dictatorship lagu tilmaami karayo dawlad military hina ma taqaanaa weligeedba waxay caan ku tahay waxay iyagu markaa yiraahdaan mooyee waxa ka duwan la yimaada inaanay sinaba ugu dul qaadan kareynin
aragtidan dowladda Soomaalidu marka ay ka wadatay ee ay ka rabtay gobonimodoonku inuu noqdana dad aad u fara badan oo sidaas si ka duwan doonaya inay wax u dhacaan baa jiray jabhad madax bannaan oo ikhtiyaarkeeda ku dagaalanta oo dadkeeda ku dagaalgelisa oo adduun weynaha iskeed u doonata ictiraaf iyo gacan siin dowladda Soomaalidu dadka caawinaya ee ictiraafay inay ka mid noqoto ay ka mid ahaato bay u badnayd dowladda jabhadda iyo aragtida laakiin dowladda Soomaalidu sidaa uma aynan arkaynin wax aynan iska kontrooli karin oo si kasta oo ay policygeeda dabacda inay mararka qaarkood bedesho ama adduunkuba marka lala taliyeeyaa waxaan joojiya ay damcaan inay bedelaan aynan iska kontrooli karin oo inay mataqaanaa tooda iyo fikirkooda ay qasab ku meel mariyaan wixii ka soo horjeedana dhagaha ka raacaan oo xidhaan yaa mar walba ka soo dhaxbaxay dowladda Soomaalida dabeecaddan militarinimada iyo dictatorshipka baana keenaya taasina kadeed bay ka sheegay waxa kale oo keenaysay aragti guud oo waddanka iyo kacaankan Soomaaliya ka dhashay kacaan Soomaaliya oo dhan saameeya oo hal talis iyo hal maamul inay Soomaaliya lahaato ay aragtidoodu tahay taasaa yaa buu ahayd taa ha noqoto jabhadda naftigeeda iyo dadkan Soomaaliyeed ee mataqaanaa jabhadda ay dagaal gelinaysay oo iyaguna dad aad u khariban oo u macna daran oo u xumaan oo qabyaalad iyo tafaraaruq fara badan ku kala dhex jiray oo dabeecadba u ah iyo haba yaraatee midalan in wax si fiican loo organize garaysto wax la isku ogyahay oo qoraal ah oo afkaar iyo ideology iyo aragti la wada fuliyo sareysan iyo wax la higsanaya aan lahayn Muuse Sheekh Harid ma la oran karaa qoladiinii jabhadda saad sheegayso dee dhibaatadaas dhacday dowladdii idin xambaaratay iyada qudheedii waa la soo xambaartay waxa dhacday dadkii idin taageersanaa idinka horta Soomaali cid idinka soo horjeeday aan uma garanayo ma jirin haba yaraatee masalan dhulkii waqooyiga oo kale oo dee saldhigiina ugu weyn ahaa oo halkaad ka duushaan ahaa oo halka safarkiinu yimaada ahaa dowladdii Soomaaliya islaayeen iyo militariga ahay jabhad la yidhaahdo Soomaali dilaya ayaa markii ugu horreysay la arko SSDF baa samaysantay markii dambena SNM baa samaysantay WSLFD intii ka hadhay dowladda Maxamed Siyaad Barre waxay u adeegsatay in iyaduna kuwa la dagaalanto way soo kartaa idinka qudheenu markaa wuu isbedelay mowqifkiinii iyo wixii aad ma garanaysa gobonadoonkeenii waa xaqiiqo arrintaasu wax been kuma jira haba yaraatee waxa weeye dad mabaadi'dii gobonnimadoonku uu weligood daacad u ahaana way jiraan dad mataqaanaa ay ka qasantay oo ku milmay khilaafkan iyo buuqan Soomaaliya ka dhaxdhacaya iyo jabhadahan iyo siyaasadan la isku hayo dhex orday oo مثلا Soomaalina mar walba siyaasadeedu gabigeedaba waxa siyaasadda ay ku sheegtaa waxa ka buuxa oo aan laga dhex saari kareynin wax qabiil la yiraahdo qabiilka iyo sheekada ku dhex milmay na way jireen jabhadu marka gabigeedaba wax cagaha isku taago oo macna leh wayba noqon weyday gabigeeda waxa loo isticmaalaa militia la dagaal gelinayo oo kulkii la doonaan la kala furfurayo kulkii la doonaan la kala xidxirayo Muuse Sheekh Harid ma la oran karaa qoladiinii jabhadda saad sheegayso dee dhibaatadaas dhacday dowladdii idin xambaaratay iyada qudheedii waa la soo xambaartay waxa dhacday dadkii idin taageersanaa idinka horta Soomaali cid idinka soo horjeeday aan uma garanayo ma jirin haba yaraatee masalan dhulkii waqooyiga oo kale oo dee saldhigiina ugu weyn ahaa oo halkaad ka duushaan ahaa oo halka safarkiinu yimaada ahaa dowladdii Soomaaliya islaayeen iyo militariga ahay jabhad la yidhaahdo Soomaali dilaya ayaa markii ugu horreysay la arko SSDF baa samaysantay markii dambena SNM baa samaysantay WSLFD intii ka hadhay
dowladdii maxamed siyaad barre waxay u adeegsatay in iyaduna kuwaa la dagaalanto way soo kartaa idinka qudhaynu markaa wuu isbedelay mowqifkiinii iyo wixii aad magaranaysa gobonnimadoonkiinii waa xaqiiqa arrintaasu wax been kuma jira haba yaraatee waxa weeye dad mabaadi'dii gobonnimadoonku uu weligood daacad u ahaana way jiraan dad mataqaanaa ay ka qasantay oo ku milmay khilaafkan iyo buuqan Soomaaliya ka dhaxdhacaya iyo jabhadahan iyo siyaasadan la isku hayo dhex orday oo مثلا Soomaalina mar walba siyaasadeedu gabigeeda waxa siyaasadda ay ku sheegtaa waxa ka buuxa oo aan laga dhex saari kareynin wax qabiil la yiraahdo qabiilka iyo sheekada ku dhex milmay na way jireen jabhadu marka gabigeeda wax cagaha isku taago oo macna leh wayba noqon weyday gabigeeda waxa loo isticmaalaa militia la dagaal gelinayo oo kulkii la doonaan la kala furfurayo kulkii la doonaan la kala xidhayo qaxootigii misalan ka soo qaad aanu anagu haddaan dowladdii Soomaaliya nahay ka soo kaxaysanay noomay soo qaxeen ka soo rarnay magaalooyinkii iyo dhulkii aanu qabanay soo burburinay iyagana oo anagu xasuusto maalmihi laga soo baxayay magaalo waliba iyadoo leedhkeedii shiday oo taliyayaashii la yidhi guba anuu iyaga guba la yidhi wax kale gubay aan faham waayay kulleyba dad malyuun iyo dheeraadana aanu soo rarnay markii dambe kuwii laftoodii waxaa loo isticmaalay masalan waxaan xasuustaa markaa dagaalkaas 77kii uu socday dadka reer Hargeysa kale dadkan jabhadda ah ee xagga magaranaysa dhaawaca yimaada iyo cid waxa weeyaan caawimo iyo waxba la sii jooray goortii dambe nacba galay in iyagii lagu isticmaalay in magaranaysa lagu aburiyo in iyagii markii 88kii balaayadu dhacday ay dhinac ka soo jeestaan oo dad kale ay martida u ahaayeen ay dhulka kaga muroo qaar leeyahay dhulka ka qabsada mar day nimankii lahaa xawashida u tageen waxa kale u wareegeen marka maxaad ka xasuusataa sheekooyinka ama aad ka oranaysa laga si aanay tiyo kale u dhicin ilaa taariikhdu macna kale ma samayso سان كوكلاو يرو مكان وركان ورهينين إنه وهمين برهين سيديو كلاو سمايو هذا نجابو ونشوف كهرة وغشة كيدو إلا جمال نعم يعني أردت ده حد كونه وحوي سيدا أكون شيء شبهدي مركي برنامج كيدي يهكس جودي يو حرينتي يقبل بندونكي وباباي سيدي اللي فيلي يسيدي اللي دوني ويسعويدي dadkii faraha badnaa ee gaarayay 1 milyan ka badan 2 milyan ugu yaraan waqooyiga u badnaa goboladan dhexe khaasatan gobolkan Hiiraan beledweyne agagaarkeeda iyo xaggan iyo Bakool iyo deganaa waxaas oo dhan mataqaana meeshii way joogaan halgankii iyo jabhadii iyo wixii meeshii wadankoodina uu socon waayay dowladdii Soomaaliyana wixii oo dhan bay faraha la gashay inay maamulkiisii iyo gacan ku hayntiisii iyadiina qasfara badan oo waxa ku dhaxdhacay jabhadahan iyo la dagaalamaya marka waxyaalo fara badan baa iswada daba maray jabhadu dowladdu ciidankii jabhada naftigiisii bay qoratay oo askar ka dhigatay qaxootigii bay ka qoratay ciidamo taas iyo nimankii gobonnimadoonka ahaa ee khaasatan Hargeysa kale iyo ka dagaalamayay way isla keeni waayeen arrimo aan iskeeni kareyn bay keentay sida aad sheegayso colaada iyo xumaanta baa abuurantay waqtiga isaga talada ugu macquulsan ee markaa ninkii wax garanaya uu ku fikirayay wuxuu ahaa in hay'addan United Nationska ee dadkan qaxootiga caawinaysay UNHCR yaa waxa lagala hadlayay oo waan ay socotay in dadkan la celiyo si nidaamsan oo systematic ah wadankoodii loogu celiyo dowladdii Itoobiya ee Mengistu waaga joogtayna sida ma ayna rabin waxay doonayeen kolkii horeba iyagoo kabashleyn bay baxeen imika iyagoo kabashleyn inay soo kabashleeyaan marka kabashleynta iyo nidaamkana jabhadahan kali ay dowladda Itoobiya iyo Mengistu way la qoladan ay la safnaayeen Soomaaliya la dagaalamaya waxaan dhacay sidan ay Soomaaliya
jabhadahan u taageeraysay in etoobiyana jabhadahan kadib la dagaalamayay dowladda soomaalida ay siinayeen gacan waxyaalaha burburka kama dambaysta ah ee jabhadan Soomaali galbeed in haba yaraatee ama iyagu ay wax taraan ama cidii taakuleynaysa ay wax ku kordhiso ay kuba suuroobi weydeen waxay ahayd jabhadahaas oo xuduudkoodii xidhay iyo deegaanadoodii ka xidhay oo quful ku soo jabiyay meel loo maro markaa gudihii la waayay marka sheekadaas waxay ahayd in dadka tartiib iyo si nidaamsan loo celiyo tiina ma ayna dhicin marka wixii inta ka dambeeyay sheekadaas way qasantay anigu inta badnaa waaga iyo 900 iyo 60 maxamed siyaad barriye mingistu heshiis baa ku dhex maray Djibouti sidaad sheegaysa labada jabhadaha ay ka heshiiyeen oo ilaahay waa nimankani waxa ka soo inagu si labadeena tala isu badbaadaan aynu qolo waliba qolada kale ka dayso tiina waxa dhalisay qoladii SNMT reeqooyiga iyagoo magaranaysa kan koosan inay soo galaan ee gudihii galaan burco maxamed siyaad barrana wuxuu amray wixii ciidan iyo hub hayay ciriya dhul iyo bad inuu furo nacam balaaya dhulka ka dhacday qayb baad ka ahayd balaayada dhacday laba siyaaboodba mid waxa weeye reeqooyi baad ahayd oo marka qabiil ahaan iyo loo rogo deegaan ahaanba dee dabcan waxaad ka soo jeeday dhulka Hargeysa iyo magaranaysa intaasoo intii badneed oo reerku deganaayo walaalaha iyo caruurihii dadkii xaggaa ka soo qaxay intooda badnaa halkaasii deganaayo waata xabadina cid qura ma taqaana cid walba way dabcan cid walba wax soo gaadhay laakiin cid gaara iyo wixii ciidan iyo quwad Soomaali lahayd ee markaa dawladdaas gacanta ku haysay lala beegsaday tiina waxay keentay wixii aad ogeyd maxaad ka odhanaysaa taa waxaan ka oranayaa ducaalow horta waaga ay sheekooyinkaas soo kharibmayeen inta aan heerkan bagaarin yaan anigu horta ka quustay Soomaali iyo gobonimo doon iyo jabhadnimada waaniga deedna intaan meeshii aan kaga tagay 75 markii aan jabhada lugta la galay ugu noqotay la foolay ku noqday macallinimadeedii iyo la foolay yaan scholarship soo raadsaday oo aan iskaga imid waxaan imid Ingiriiska waxa dambe ay dhacay sheeg iyo duulduul buu igu ahaa 84 wixii ka dambeeyay laakiin warka anigu aan hayo waxyaalo fara badan oo foolxun baa ka dhacay wadankii magaalada Hargeysa oo kale anigu Manchester joogaan wararka maqlayay anigu markaa qaxootiga isu dhiibay oo halkan qaxooti ka ah waxbarashadeedii intaan dhamaystay haddii bidikadii halkan iska joogo oo meel lagu noqdaaba inayna Soomaali iigu harin aan ka warhayo yaa duulduulka hadallada igu soo duulayay in madaafiic la dhacay magaaladii dhanayd oo la burburiyay muddo badan baan rumaysan lahaa oo oran jiray waxaas wax jira maaha waa dacaayad iyo propaganda wax iska daayay wax dhici kara maaha ilaa aan indhahayga ku arkay saraakiishii samaysay waxa ay halkan iigu yimaadaan London warayso oo waxaas ma hubtaan oo la yiri annaga hubna oo arkay sawiradii madaafiicii oo safan meel airport-ka agtiisa ah oo aan waxaan aqliga geli karayn ay dhaceen dayuuradii soo waxyaalaha ma taqaanaa akhritaankii dadka aad u sii kala fogeeyeen waxyaalahaas ka mid ahaa waxaan qabaa waxyaalaha dhacay oo aan ka dhicin Hargeysa kaliya waagii dambe ka dhacay wadankii oo dhan oo xamar ka dhacay oo Hargeysa horteed ka dhacay meelaha qaarkood gobolka Mudug gaalkacay agagaarkeedii ka dhacay oo dadka aad iyo aad ugu tacdiyay oo ay dawladda iyo ciidankeedii shacabkii Soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan simply jabhad baad noqoteen inay dawladda wax ka bedeshaan oo systemka bedeshaan baad doonaysaan ay dhib aad u fara badan ummadda loogu geystay oo waxyaalo badan oo mataqaanaa sheeko reeb ah sida aan taariikhda ku maqlay anigu goobjoog waaga waxaas kama ahayn ay ka dhaceen waxaan dadka aad u sii kala fogeeyay ee xumaanta keenay ee ka mid tahay
waxaan se aaminsanahay waxaa jab Soomaali ku dhacay ilaa heer walba uu soo gaaray cid waliba way jabto way lugo'do balaayaa ku dhacday anigu waayadan u dambeysay aan ka imid wadankii ka imanayay 82 arrimo igu dhacay anoo jooga meesha la yiraahdo Xamar nin odaya oo dadkii aan dagaal galiyay kamid ah oo magaalada Harar agteeda deganaa oo nin maal qabeen oo aad u xoolo badan beero baabuur caruur fara badan si walba u ladnaa oo wiil yar oo maxay ahayd 7 jir uu usha u hayo yaan ku arkay maxay ahayd habeen kula kulmay meel la yiraahdo bar Fiat oo Xamar ku taala meel baan shaah ku cabeynay agtayadu soo maray isagoo wiil usha u hayo niman agtayada fadhiya fariisiyo kursi intay fariisiyeen bay su'aal weydiiyeen wuxuu yiri sanad ka hor mise 2 sano ka hor waxaan lahaa 17 caruur ah waxaan lahaa intaasoo baabuur oo waaweyn waxaan lahaa intaasoo dukaan waxaan lahaa intaasoo beerood waxaan lahaa 3 ku lahaa Addis Ababa Diridhabo Harar maanta waxaan ka hayaa wiilka yar wadaadkii baan hoos u eegay waxaan u fiirsaday intaan soo kacay yaan su'aal weydiiyo magaciisa buu ii sheegay magaciisa waan gartay dadkan anigu dagaal galiyay intaan ugu tagay gudaha inuu yahay baan gartay wax alla waxaan u qaban karo u kordhin karaana inuu jirin baan arkay waxyaalaha aan aakhritaankii inaan wadanka iskaga imaado jabhad iyo siyaasadeed iyo hawlaheedna faraha kala baxo mar haddii ciddii aad dagaalka gelisay haye ana waxba u qaban karin yay ka mid ahayd waxaan xaggaana ka xoray xaggana u xoreyn karin nacam marka waxyaalaha waxa iyo wax uun ka sii waaweyn oo ka xunxun ee wadanka meel walba ka dhacay Xamar ka dhacay waagaan waxaan ku leeyahay waxa saan arkay oo aan ka imanayay waxaan oran jiray waleetanay ka dhici sidii un bayna u dhacday Hargeysa ka dhacday Xamar bay ka dhacday meel walba ka dhacday waa kan burburka Soomaaliya aan gaadhnay complete ah ilaa maantada la toosin kari laayahay halkaas uu ka soo bilaabay halkaas uu ka dhacay saas uu dhacay waxaan 1999 ayaa waxaan u maleynayaa baaruuda halkaa ka soo xarigaasi sidoo soo xaleebay qax ahay dawladdii Maxamed Siyaad Barre wixii ugu dambeeyay waa loo kala tagay nacam qoladii reewqooyiga intii yarada u hadhay iyo intii kale baaqiga ah waxa isku kabeero Somaliland jumhuuriyad la yiraahdo iyo ku dhawaaqeen waxay leeyahay waxa yigi 60kii oo la soo noqonay anagu qoladii kalena ilaa imika way isku meeraysanaysaa waata oo imika wala si kala wadaabo waxaan leeyahay iyada lafteedu inaan intii hore talaanigu ka tagay loogu iman doonin idinka qoladiinii dagaalka la gelisay hawsha wax noogu wacnay dhinac waad naga dhaantaanoo dee maanta sidii hore laydin lama dhaqmo oo dhulkii dee kilil baa laydin bixiyay wax laydin wad madax bannaan tihiin haddaad doontaan dastuurka wuxuu qorayaa oo idinku heshiisaan inaad dowlad gooda ku dhawaaqi kartaan inkastoo weli idinka qudhiina qaar aan miyirsanin ay jiraanoo weli xabaddeenu hore wax ugu weynay sitaa si ay u tahayba iyo wax ku kalifayba iyaguna maanta dad ismaamulo oo madaxweyne Soomaaliya leeyihiin oo bahal dhaanta la yiraahdo way xoreysteen oo qabtaas bay ku hayaan markaad waxa soo dhan kala rogrogteed soo eegto oday weyn baa tahay xaggana waad ku dhalatay xaggana waad ku korto waxaad ku baratay xaggana dagaal baad gelisay xaggan kalena cilmi iyo shaqo kala soo gelisay aragti maxaa tala ah oo oran lahayd qolo walba halkeeda aad ugu talin lahayd ama aad oran lahayd way ku qaldan yihiin ama aad oran lahayd adigoo waliba ina sheeko xariir oo dee la garanayo historyga iyo taariikhdaada aabaha iyo dadka hore ay lahaayeen waxaad oran lahayd horta waxyaalo fara badan baad i weydiiso imika dee qaybtan dambe wixii ugu dambe ka dhacay wixii 91 ka dambeeyay wadanka ka dhacay iyo wajiga uu yeeshay iyo waxyaalaha sidoo ahaa waa wax fara badan oo aan iyadoo kooban lagu dhameystiri kareyn hase yeeshee aan kala horreysiyay taxaggan Soomaalidii Itoobiya Soomaali galbeed la oran jiray imika Soomaalida Itoobiya la yiraahdo
aan ku horeeyo waxaan anigu aaminsanahay halgankii iyo dagaalkii waagaa la galay ee Soomaali oo dhanina ku jabtay jabhadda Soomaali galbeedna muddada dheer ay waday waxaan qabaa uu midho dhaliyay guushan maanta la taagan yahayna halganka iyo dhimashada faraha badnayd iyo dhiigga badnayd u daatay baa keenay goob joogii u dambeeyay jabhadaas ma ay noqon waa kan ka sheekeeyay burbur fara badan oo ku dhacay iyo khasaare iyo talaxumo fara badan oo Soomaali ka timid inay dhacday oo aynan soo dhawaanin waqtigan lagu guuleysanayo oo ninkii aanu la dagaalameynay kaliya taliyihii kale xaggan Itoobiya ka talinayay Mengistu Haile Mariam iyo askarihiisii iyo mataqaanaa ciidamadiisii caburinta ee ka dhaxlay tii Haile Selassie laakiin iyagu kaba sii daraa tii Haile Selassie shabkii u dambeeyay ay iyaguna meesha burburayeen ma aynan soo gaarin jabhadii Soomaali galbeed ka horbay burburtay anigu waxaan joogay waaga magaalada Manchester joogay markan 1990kii ay dawladii Mengistu burburayso iyo tii Soomaaliya ee bar labaduba waxaan joogay wadankan Ingiriiska laakiin wax walba waan la socdo waan dhageysanayay jabhadan imika wadanka waagan Itoobiya qabsatay EPRDF tallaabadii ay qaadaan iyo guushii ay gaaraan waan la socday anigoo Manchester jooga yaana celebrate gareynay oo dabaaldegay maalintii u dambeysay ay wadanka qabsadeen lacag badan ma aan haysanin shaqo fiican ma aan haysanin 250 gini yaan haystay 250 intaan soo saaray yaan Soomaalida magaalada joogtay isugu yeedho xaflad heer sare ah yaan sameeyay waxaan u arkayay sababta u sameynayay halgankii anu aan goob joogi waayay aan alfan waayay ee shabhadayadii mar horeba burburtay ee dhacday inuu kii yahay kamidhahan dhaliyay hadda nimankii aanu isku safka ku wada jireen ka dagaal galeynay Itoobiya ee dawladii Haile Selassie iyo dawladii Mengistu labadaba la wada dagaalanay hadday iyagu akhritaankii guushii istaageen EPRDF iyo qoladii kale xitaa Eritreyiinta ah iyaguna wadankoodii qabsaday hadday guul ka gaareen Mengistu Haile Mariamna isagoo kabala u ka cararay wadankii waxaan u arkayay inaan wixii aan u dagaalamayay inaan gaaray tii baana midho dhalisay oo ilaa maantada aan joogno maamulkan iyo dawladnimadan ka jirta wadanka waa tii oo si fiican u hana qaaday ilaa maanta iyo waagaana xafladeyntii iyo dabaaldegii nooca ahaa ku jira aad iyo aad baan dhanka raali ugu ahay tii xagga Soomaaliya timid Soomaaliya burburkii ku dhacay iyada xaggeeda ku dambeeyay iyo civil war kan iyo baxayday balaayadan iyo baaskan ka dhax dilaacay hadda uu horta ugu rooyahay oo tartiib inay soo roonaanaysa waad moodaa inkastoo koonfurta hadda dhibka ugu weyn ee ka taagan uu yahay nimankan shabaab la yiraahdo ee qoryaha wata ee xoog baan wax walba anagu taayada ku maran siinayna nidaam aad u wada khariban oo u qaloocan la soo taagan waqooyiga dawlad stable ah oo degan oo democratic oo doorashooyin fiican sameysay dhowr jeer baa yaa ka hana qaaday meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah dhulkan Puntland wadankan la yiraahdo dawlad iyaduna democratic oo aad iyo aad u wanaagsan oo peaceful oo degan yaa ka abuurantay meelo kale oo Soomaaliya ah waa sansaankaas laga wadaa hadda way soo fiicnaanaysaa aad iyo aad bay u wanaagsan tahay tala ahaan anigu waxaan qabaa fikir ahaan waxaan qabaa dagaalada iyo qaska iyo balaayooyinka soo dhacay kuwa waxay ahaayeen taariikhdu ay keentay duruufo iyo arrimo history iyo taariikhda Soomaalida iyo geeska Afrika waxyaalo soo maray oo aan waxba la isku calaanan kareyn la isku qowmeyn kareynin uu keenay bay ahayd dhulkan geeska Afrika Soomaali baa deganaan jirtay qarnigii 20aad wixii uu ka dambeeyay wixii ka horeeyay kaligood baa deganaa kaligood baa mataqaanaa nolol iskaga noolaa mataqaanaa nolosha taariikhda Soomaalida ku jira una reer miyinnimada isticmaar waxa la yiraahdaa yimid dawladaha yimid way qaybsantay fikirkan ah Soomaali shan baa loo qaybiyay fikir la iska hindisay oo la maleeyay waa mid xaqiiqo ku salaysan
in 5 dowladood loo qaybiyey waa arrin xaqiiqo ah markay waxaas u dhacayeen Soomaaliya xagee jirtay way u joogeen way dhacday marar ay ka dagaalameen way jirtaa marar ay mar dambe uro ay sheekadu la tagtay ogaanayeen in way jirtay inay ka dagaalamaan inay Somali nationalism wax la yiraahdo oo qowmiyad Soomaaliyeed oo waxaan kadii oo dhan in la dagaalamo oo Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Ethiopia inta la dagaalamo la diido in la damco in waxa dhan la isu keeno oo la unify gareeyo waxa soo wada dabiici ah adduunka way ka wada dhacdaa nationalism ka caynkaasi hase yeeshee nationalism kii caynka ahaa iyo la dagaalankii iyo isku daygii la isku dayay waxa soo dhan in la isu keeno oo la mideeyo oo Soomaali weyn shanta Soomaaliyeed la isu keeno way suuroob weeyday waa la isku dayay way suuroob weeyday jab iyo naasabeel badan baa ka dhacay waxaan u maleynayaa hadda marxaladda la joogo inay ku fiican tahay inaan taariikhda hore iyo isku dayga iyo waxa la sii daba ordin in shantaas Soomaaliyeed shantiiba wali way dhisan yihiin mid waliba uu barakeysan yahay halkiisa loogu duceeyo uu ku barakeysnaado sida wax ka fiican anigu ma garanayo waxa weeye mesela qaar waa la ogol yahay oo nina hadda kuma haysto inuu dib ka sameeyo Soomaalida Ethiopia inay Ethiopia ka mid ahaato kuma barwaaqeysnaato dadka badankiisu raali ay ku yihiin baan u maleynayaa Soomaalida NFD la oran jiray Kenya halkoodaas ay ku barwaaqeysan yihiin isxukun iyagu ay isxukumaan oo self rule la yiraahdo oo dastuurkooda constitutionka Kenya ugu rakiban ay hadda ku haystaan waagi horeba ma taqaanaa dib saa u weyn oo ka jiray ma uusan jirin dawlad Kenya la yiraahdo xoog ku qabsatay meeshuna ma ayna jirin Djibouti waa dawladda xorta ah waa meesha imika Soomaaliba iftiinku uga baxaya Soomaali isu keentay uga ka shaqeysa waxa hadal ka taagnaan jiray dadka qaarkood waxa weeyaan Somaliland dhulkii la oran jiray Ingiriisku uu haysan jiray waqooyiga iyo dhulkii Soomaaliya la oran jiray waqtiyada qaarkoodna Italian Somaliland la oran jiray ama Italian Somalia in la isku daro waa ka isku darsameeyeen mar ay isku soo noqdaan yaa dadka qaarkood la quman oo ay jecel yihiin dadka qaarkoodna waxa la quman in laba dawladood oo daris ah oo walaala ah ay ahaadaan anigu fikirka dambaan la jiraa runtii anigoo aan cidna meel kaga dhacaynin cidna doonaynin inaan farageliyo siyaasadahooda Soomaaliya oo dadka aan walaalaha nahay sida uu khayr badan ee iyagu dantooda ku jirto inay ku tashadaan baa fiican laakiin anigu aragtida aan qabaa waxa weeye in ay ku tashadaan intay isu yimaadaan oo iyagu ay aayar wada hadlaan oo ay si fiican isu afkaar weydaarsadaan inay laba dawladood oo walaal ah noqdaan anigu waxaan qabaa cid ku ciilqabi iyo cid ku dhacan ama cid dib ku haysta midna inuusan jirin haddii sidaa ay sameeyaan labadaba ay barwaaqoobayaan haddii ay sidaas oo is afgarad oo iyaga ka yimid اعترافkeeda iyo dabagalkeedana adduun weyna kale iyo Yurub iyo carro gaalana aan laga raadinin iyagu dhexdooda ay ka raadiyaan qoladan Somaliland iyo dawladeedu xoogooda iyo energy ay gelinayaan dibadda inay اعتراف nooca ka raadiyaan haday aayar Soomaaliya dhexdeeda geliyaan oo dood nooc walba aqoon-yahanada odayaasha ururada bulshada siyaasiyiinta lala doodo oo la isqanciyo sidee baa inoo roon ma sidana inoo roon ma sidana inoo roon laga doodo inay dad badan qancin karaan baa suuragal noqonay haddii iyaga la qanciyo oo lagu qanciyo inay isku darsadaanna waa well and good awal way isku jireen mar isku darsadeen hore ay jirtay hadday sidii isugu darsanayaan waxba anigu naftigeeda uma arka inay ceeb ka imanayso laakiin anigu waxaan qabaa waxaan u maleynayaa inay laba dawladood ahaadaan inay khayr badan tahay sida aynu u runtahay ilaahay naxariista ka waraabiyo Xaaji Maxamed Xuseen Sheekh Xariib wuxuu ka mid ahaan jiray ragga mararka Soomaalidu waxa soo kale ku dhacaan had iyo jeer loo baahdo ama run sheega ama gaar ahaan ma garanaysaa colaadaha iyo dhibaatooyinka kala maslaxadeeda da'diisii imika uu ku talin jiray labadeed baad jirtay
in badan oo ku maqli karaysaana way jirtaa نعم dabcan ra'yigaaga waad dhiibatay هاي qoladiinan kale ee labadii qole isku jirtay haddii ay daraaddiin u burbureen هاي oo balaayooyinkii aad qayb ka ahaydeen ay ku dhaceen نعم ood idinku maanta nasateen مم. jabuutina dowlad tahay kelilkiina uu dowladdiisa kale yahay qoladii kale هاي miyaanay habbooneyn odayaashiinii kale ee xaggan joogay هاي inaad idinka qudhiinu ergeysaanoo idinkoo aan laydiin arkayn inaad la kala jirtaan هاي labadan qolo inaad si fiican ula kala talisaan oo intaad aniga ii sheegayseed lahayd waxaa fiican haddiiba aamin darro ay ku kala dhex dhacdo waxoogaa isafdhaafi uu jiro doornaydaan ku yeelan karin ويدع inaad كرتها idinku meel dhexe intaad ka timaadaan oo idinkoo weliba labada qolaba wax la ah نعم oo dhinac walba ku jira aad wax ka tari kartaan I'm sure we can do that taas waa arrin aad iyo aad suuragal u ah waa arrin haddii daacad leeyahay oo Soomaaliya daacad isu tahay waa arrin lagu dhaqaaqi karo oo la samayn karo oo dadkan loo kala ergeyn karo oo la hadli karo oo la isu keeni karo oo la oran karo annagu xukun gooni ah goynba meyneen kaal oo wada hadlo si fiican u sheekaysta maxaa dibadaha laga ordiyo kolba maxay ahaydey Europe iyo Turki iyo ku shirshirideed maxay taraysaa Soomaalidu dhexdeeda iyaga wada hadli karo oo is shirin kara si fiican loo wada xaajoodo Soomaalidu dhexdeeda ha wada hadlaan maxaa dantu tahay ha laga wada xaajoodo ha la soo qaado mesela haddii dib ay u noqdaan laba hal dawlad oo xoog badan oo Soomaaliya la yiraahdo sidii hore jamhuuriyadda Soomaaliya ee waqooyi iyo wixii oo dhan isku wada rakiban yihiin miyaanay keeni karaynin fikirkii ahaa shantii Soomaaliyeed ee luntay ee qarnigii 19aad isticmaalku qaybsaday ee xaqiiqada ahayd ee laga dagaalamay Somali nationalismku uu markaa yiri waxa dhan waan isu keenaynaa waan xoreynaynaa in dib haddana loo raadiyo in dhibkii halkii ka bilaabo ilaan xoogagii waagi horeba sanka ka garaacay ku joogay wali way nool yihiin way dogaan miyaanay dhici karin aayar ma la kala joogo oo shantaa Soomaaliyeed sidoodii ay kala ahaadaan maxaa dan oo ku jirta hal dawlad aynu isku noqonadan ay fikirka dadka qaba noocaasa miyaanay suuroobi karaynin laba dawladood oo dawladna ma hayday Somaliland Republic la yiraahdo midna Somalia Republic ama Soomaaliyada bari iyo whatever waxay la baxayaanba magac uun kale miyaanay suuroobi karaynin maxaa kaga khasaaraya imika ma taqaanaa nidaam baa jira federation la yiraahdo in gobol walba dawlad goboleedyo inta laga sameeyo iyo ismaamul goboleedyo cid waliba ay tashigooda hoose haystaan taasaa mar walba dhici dawladda kore ee federaalka ay sameysanayaanina taasay ahaan tun noocaas oo waqooyiguna ay leeyihiin iyo tun noocaas oo ay koonfurtan qoladan Talyaaniga ahaan jiray Soomaaliya ay leeyihiin oo walaalo ah oo heshiisyo kala qortay oo iyagu iskala saxeexday arrimaha immigrationka culture-ka ganacsiga isu socodka waxbarashada walaaltinimada wadaaga oo isgarabsada inay abuurmaan aad iyo aad baad ma waxa ka khasaaray maxuu noqonayaa Muuse Xaaji Maxamed Xuseen Muuse Sheekh Xariin waad mahadsantahay welcome thank you